maalintii talaadadii ayaa la sheegay in dulyadayn uu yimid deegaanka buulaguduud isagoo maalmahaas ku wareegayay furimaha dagaalka si uu ciidankiisa u dhiirigeliyo. waxaa kale oo ciidanku uu waday sida la sheegay saad kooban oo ay ka mid yihiin marakaneecooyin, soolarka lagu soo celiyo dabka bateriga, telefoonada, kabo iyo weliba dirays. waxaa la sheegay in ciidamada sirdoonku ay ogaadeen dhaqdhaqaaqiisa iyo halka uu joogo, kuwaasi oo baadigoob kulul ku hayay. wararku waxay sheegayaan in dulyadayn uu saarnaa gaarin nooca lankrusel ee loo yaqaano brado xilli habeen badhkii kadibna aan halkaa ku celiyey. waxaa la sheegay in ninkaasi uu saarnaa baabuur nooca loo yaqaano toyota land cruiser brado xilli habeen badh ah kadibna uu ka baxay deegaanka buulaguduud isagoo usii jeeday dhinaca jilib. wax yar kadib markii ay ka baxeen buulaguduud ayaa la sheegay in 2 diyaaradood ay hareeraha ka mareen baabuurka, waxaana la sheegay inay ku ifiyeen nalal waaweyn. dulyadayn iyo raggii la socday ayaa la sheegay oo tiradoodu ay dhammayd 3 inay ka baxeen baabuurka kadibna ay rasaas kusoo fureen ciidamadii soo weeraray. ciidamadaas ayaa la sheegay iyaguna inay ku jawaabeen rasaas, kabacdina ay dhulka u degeen, halkaasna ay ku dileen dulyadayn iyo xubnihii la socday. ciidamada howlgalkan fulinaya ayaa la sheegay inay amarkaasi heleen kadib markii ay ku guuldaraysteen qorshahooda hore oo ahaa inay qabtaan. axmed macalin fiqi waa taliyii hore ee hay-adda nabad sugidda Soomaaliya. xaqiiqatan waxaa weeye waxaan ilaa iyo hadda intaan hayno dulyadayn nin maxamed maxamuud baa la dhihi jiraa magaciisa rasmiga ah. magacyo badan oo naynaasaa gacmo dheere iyo dulyadayn iyo cabdiraxmaan iyo waxaasoo dhan waa la dhihi jiray. nin field commander ahaayo ciidamada hogaaminta ciidanka ku wanaagsan, obereshanada qaarna u xil saarnaa, inta badanna ka howlgeli jiray jubbooyinka iyo Kenya. nin aaminsan oo aada u mayal adag buu ahaa. marka operationkan kolley waxaa intaan xogta helayno wuxuu ahaa operation la isku dayay ninkaas odaga ah oo loo tiirinayay inuu weeraradii u dambeeyey gaarisa mararka qaarna la gaarsiiyo kii Westgate oo kale inuu ku lug lahaa, amaba dadka maskaxda u ah inuu ahaa. madaxiisa lacaga dhowra la dul saaray oo xataa kenyaatigu 20 milyan oo lacag ay dul saareen. ninkaasi marka nin areadaas iyo gaar ahaan jubbooyinka iyo Kenyada dhibaato weyn ku hayay, oo weliba ninka u xil saaran howlaha halkaas ka dhacaya ayuu ahaa. inuu dad badan recruit gareeyay oo u qoray al-shabaab oo deegaamadaasi ku saabsan iyo Kenya gudaheedaba sawaaxiliga ku hadla oo uu xuduudda ka tallaabsiyey. waxaasoo dhanba waxay ahaayeen eedaha iyo waxyaalaha lagu tuhumayo. marka nin xajmigaas leh buu ahaa. ninka xajmigaas leh marka oo dawlado waaweyn sida Kenya oo kale dhaqaalaheedii iyo maaragtay amnigeediiba curyaamiyey ama jubbooyinka hadeertaan ciidamadii ay la dhaqaaqi laayihiin. ninkii mas-uuliyadaas ayuu ahaa. marka xajmigaasuu lahaa. waxaa la isku dayay marka in sida aan maqlayno ama heeraha amnigu ay noo sheegayaan in la isku dayay in la qabto, laakiin ayse markii la dareemay inaysan suurtagal ahayn in si nabadgelyaha uu ku gacan galo, in markaas kadib ay operationku inuu dhacay oo sidaasna uu ku dhintay. 27 May oo ku beegnayd 4 maalmood ka hor dilka dulyadayn ayaa sidoo kale ciidamada Mareykanka ay gantaal la heleen baabuur u saarnaa macalin Daawud oo ka tirsanaa madaxda ugu sarreysa dhinaca ciidamada ururka al-shabaab. sida ay sheegayaan dadka khubarada ahna macalin Daawud iyo dulyadayn labaduba waxay ka tirsanaayeen dadka waaye aragga ah ee magacana ku dhexla ururka al-shabaab, waxayna ku doodayaan in dilkooda uu saameyn ku yeelan doono xarakada ururka al-shabaab. waa kan mar kale axmed macalin fiqi. horta labada nin macalin Daawud Cabdullaahi Cabdi Jimcaale ayuu ahaa magaciisa rasmiga ah inta aan ka aqaano. macalin Daawud waa la dhihi jiray. Suhayb magacyadu adeegsan jiray. Suhayb baa kamid ah. Yuusuf Xaaji, Timos, magacyo tiro badan buu al-shabaabka gudahooda ka lahaa. dulyadaynna waa anagaad sheegnay. labada nin waxay iska shabahaan. waxay ahaayeen tan iyo inta al-shabaab jirtay way jireen oo rag waxay ahaayeen fikirka dadkii u horeeyey oo fikirka al-shabaabnimada iyo xagjirnimada iyo al-qaacidada qaatay bay ahaayeen. waxay ka simnaayeen inay ahaayeen 2 nin oo aada u mayal adag, aaminsan ideologigaas al-shabaabnimada iyo xagjirnimada intaba. waxay ahaayeen nuxurkii lafdhabarka hogaanka hadda jooga oo soo xaadiray xilliyadii kala duwanaa ee al-shabaabka isbedelada xoogan ay ku dhacayay, ilaa iyo markay xooganaayeen, markay asaasmayeen, markay soo xoogeysteen, markii la jebiyey, iyo haddaba oo hogaamiyahoodii godane uu dhintay iyo Ibrahim Afgaan iyo rag badan hortooda lagu dilay. marka waxay inta yartahay oo baaqiga ka ah oo nuxurka ah oo soo joogtay waqtiyadii kala duwanaa oo seniorka ah oo wax laga weydiiyo arrimaha kala duwan amaba maskaxda u ah al-shabaabka. marka wuxuu uga dhigan yahay
ninka daawud oo kale wuxuu ahaa nin ninkii hadda gaashaandhigga uqaabilsanaa oo ciidamada weerarada geysta oo dhan qaabilsanaa buu ahaa. wuxuu soo qabtay intelligenciga iyo amniyaadku soo qabtay, senior amniyaad uu ahaa nin ah. kaysaska qaarkood kaysas gaarana waa loo dhiibi jiray. kayskii faransiiska nimankii oo afduubnaa ee faransiiska ninkii gacanta ku hayay ayuu ahaa. nin aada ugu dhow badane ayuu ahaa. marka dhaawac xoogan labadooduba waxay ku keenayaan oo al-shabaab ay uga dhigan tahay in dhaawac xoogani uu soo gaaray dadkii ka harsanaa, baaqigii yaraa oo ka harsanaa dadkii fikirkan bilowgiisii soo aasaasay oo soomaaliya ka jirsiiyey. dadkaasi nuxurkii intii yarayd oo ka harsanayd oo weliba darajada gaartay inay gaaraan madaxda sarsare oo ciidamada hogaamintooda iyo amniyaadka iyo gaashaandhigga iyo shabaabna dee waxa keliya ku shaqaysa dawlad kalama maamule. waa mar uu ciidan iyo amniyaad iyo operationna iyo howlgallo gaar ahoo dawladaha deriska iyo dalka soomaaliya gudaheedaba ay ku fuliyaan. marka ana waxaan isleeyahay yani jug xoogan oo dhaawac xoogan ayuu soo gaarsiinaya al-shabaab. mana ay heli doonaan cid u bedesha. cid ay xilkaas u magacaabaan way heli karaan, laakiin cid u bedesha khibradii iyo waayo aragnimadii iyo xogtii iyo geesnimadii iyo fikirkii mayalka adkaa ay xambaarsanaayeen dadkaasi dad u bedelaa ma helayaan. kuwa hadda ku harayna waxay u tahay darsi bay u tahay inaysan ayaguna badbaadayn. marka waxay noqonaysaa in mar haddii dadkii dhalinyarada ahaa ay howlgeliyeenna mar haddii madaxdii laga dilo kalsoonida tirada badan iyo xagga fikirkan ay ugu xirmeen kuwa lagu bedelaahi ma noqon doonaan kuwa xag fikir ay ugu xirmaan, xag maamul keliya kuwa ay ugu xiran yihiin yaa laga yaabaa inay noqdaan. wasiirkii hore ee gaashaandhigga soomaaliya cabdixakiin xaaji maxamuud fiqi ayaa isna v o a u sheegay in al-shabaab ay ku adkaan doonto inay raggaasi bedesho. aad bay muhiim ugu tahay ciidamada la dagaalamaya argagixisada dilka labadaas nin oo la dilay, sababtoo ah waxaa la ogyahay inay hore ay howlgallo ugu geysteen dalka soomaaliya iyo wadanka aan dariska nahay Kenya ama magaalada Gaarisa. marka muhiim weyn, aad bay muhiim ugu ahayd dilka labadaas nin. runtii waxaana dhihi karaa waxay ku noqonaysaa al-shabaab niyad jab oo aada weyn. midda labaad waxay ku abuureysaa cabsi iyo welwel, kaasoo aan isleeyahay wuxuu wiiqi karaa qorshaha iyo howlgallada ay damacsanaayeen ama ay qorsheynayeen inay sameeyaan. tan kalena waxaan leeyahay tan saddexaad ma heli karaan runtii qof khibradaas leh oo horey ugu soo jiray oo laga dilay bedelkiisa tay kalaadna aad bay u adag. laakiin ururka al-shabaab waxaa ka dhintay xubno badan oo ku jiro hogaamiyihii ururka. ilaa haatanna ma muuqato in dilka xubnahaasi uu saameyn ku yeeshay awoodda ururka. waxaan wasiirkii hore gaashaandhigga cabdixakiin xaaji maxamuud fiqi mar kale weydiiyey in loo baahan yahay istiraatiijiyo ka duwan beegsashada shakhsiyaadka. runtiis waxaan isleeyahay istiraatiijiyada ugu fiican waa dilka nimankaas targetka la target garaysanayo oo operationnadaas ama howlgalladaas hogaaminayo, sababtoo ah saameyn weyn bay kula yeelan kartaa. sidaad la socoto hogaamiyihii al-qaacida Usaama bin Laden markii la dilay kadib, al-qaacida runtii magaceedii aad buu hoos ugu dhacay, ama waxaanba dhihi karaa waxay ku dhowdahay baaba. marka arrintan runtii madaxda nimankaas hogaaminaya howlgalladaas laga dilayo saameyn xoog leh ayay ku yeelan kartaa al-shabaab, hadday noqoto morally ama niyadooda, hadday noqoto ama hadday noqoto inay ku abuurto ayaga laftigooda welwel iyo cabsi fara badan oo halkii ay wax ku qorsheyn lahaayeen ay ku mashquulaan si ay ayaga uga badbaadi lahaayeen taargetkaas ayaga la taargetay. dilka loo geystay maxamed dulyadayn waxaa la sheegay in intiisa badan ay geysteen ciidamada dowladda soomaaliya, gaar ahaan ciidamada lagu magacaabo danab. mas-uuliyiinta ayaa sheegay in ciidamada danab haatan hawshoodu ay tahay fulinta kadib marka qorshaha iyo xogta loo dhammaystiro hawsha la fulinayo. waxayse sheegeen inay ku rajawan yihiin ciidamadaasi ay dhowaan awood u yeelan doonaan 100% inay howlahooda ay fuliyaan.